waxaa saaka dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab qoysas Soomaaliyeed oo dhowr sano qaxooti ku ah xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyadoo dadkan si iskooda ay u go'aansadeen inay dib ugu laabtaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. qoysaskan oo intooda badan u badnaa dhalaan iyo haween ayaa waxaa saaka la keenay gagadan diyaaradaha ee magaalada Dadaab muuqaalkooda aad aragtaan iyadoo halkan looga qaadayo diyaarad isla markaana la geynayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. qaar ka mid ah dadkii ka duulayay saaka gagada diyaaradaha ee magaalada Dadaab oo la hadlay TV-ga caalamiga ee Som News TV ayaa waxay uga warrameen halka ay ku socdaan iyo waliba dareenkooda iyagoo sheegay inay si iskooda u go'aansadeen inay dib ugu laabtaan gudaha dalka Soomaaliya. qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay TV-ga caalamiga ee Som News TV waxaa hadaladoodii ka mid ahaa saanka waxa joognaa airportka Dadaab baa joognaa oo rabnaa dilaa in marna inaan ka baxro waxaan afartan iyo toddoba qof oo u socota Muqdisho ilaahay maadiisa waxa weeyaan fursad qaali ah dadku ma wada heleen qaxootiga oo dib hadda u noqonaya ma wada heleen falaay ma heleen dhulka ay marayeen marka alxamdulillah rabbil caalamiin waxa ilaahay ugu shukriyaa duulimaadka aan helnay oo falaayga aan helnay oo cajiibka ayaan ilaahay ugu shukriyaa tan kaleeto waxa weeyaan waddankayagii oo laga soo sheegay amnigu inuu soo hagaagayo ayaan u soconaa marka bal dareenkaaga nooga waran. dareenkayga aad baan u faraxsanahay inkastoo warshadaadkii marka hore naloo sheegay in badnaa haddana nala ku yiri waxaa loo jaray falaaygaas dadkiisa duulimaadka ayaa diyaaradaha qaali ah oo loo jaray intaas mooyaane sida kale aad baa dareenkaygu u fiican yahay. بسم الله الرحمن الرحيم محمد حسين محمد oo kamid ah dadka saaka la qaaday oo qaxootiga oo Dadaab la qaaday oo maartay xagar dheer ah sidaas aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waana ku maadsanyihiin inay si aariyo dawladda Kenya maadaama codsigayga baaha markii ugu horeysay oo qaxooti Soomaaliyeed ay si iskooda uga laabtaan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyadoo tan iyo bishii 11aad ee sanadii 2013 markii kulan saddex geesooda ay yeesheen wadamada Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda UNHCR isla markaana looga hadlay arrinta dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed oo mid iska in bishii 12aad ee sanadii hore ay si habsamiya howlahan dib u celinta iska uga bilowdeen gudaha xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyadoo Arbacadii aynu soo dhaafnay ay qaybtii ugu horeysay oo laba diyaaradood ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee saaka dadkani ay ka baxayaan balse waxaa jira kuwo kasii horeeyay oo iyagu gawaari lagu qaadayay. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagol TV-ga caalamiga ee Som News TV garoonka diyaaradaha ee magaalada Dadaab.